halkan aan joogo waa magaalada Qaawane oo markaas neenaastada ay tahay Qaawane laakiin hadda lagu magacaabo la socdan maanta magaaladan aan imid safar gaaban oo saacado ayaan ku soo gaaray hawlo yar oo shaqaan u imid marka hotel ma degi karin oo de waqtigan joogaaba iska yar guriga kalena ma raadin meel iska qabow baan ka dalbaday asxaabteeda ila socotay inaan iska yara dego oo magaalada gudaheeda inaan iska dego marka halkaan la keenay أنا dalbaday gurigan qabow in aan isaga tago oo aad ku macaan joogiisana macaan yahay asxaab badanna ay jeclaan doonto markay gudihiisa galo runtii waa xasuus dad badan ba xasuus ku tahay mar walba waan arkaa laakiin dad badan muuqaalkan daawanaya ay xasuus ku tahay marka bal gudihiisa gali doona horta waa kan dayrkiisa iyo alaabtaas filooyinkaas geedaha ka samaysan waa filooyinkaas ayuu leeyahay waa guriyihii ugu horeeyay magaalada laga dhiso marka hadda dhismayaal badan oo qurux badan magaalada laga dhistaa laakiin kuwan waa guriyihii ugu horeeyay magaalada laga dhiso halkaas ka muuqda gudahan u galeeyaa iyo halkaan deganahay yaanan waxba hadalka idin ku dilin surigiisa halkaas ku tiqoda halkaas taleefanadeedii alaabteeda aan dhigtay borsadeedan halkaas aan dhigtay biyaan ku weysiisanayay dayrkiisa waka gudaha safiitaad arki jirteen laakiinse halkaan bac iyo alaab yara oo baa ka muuqata dadkii safiitooyinka iyo shubka iyo guryaha deganaa marwaxadu ka luleen waxaan leenahay waxaasi adinkaa laydin dhahaa meel qabow nacow dabiiciya oo aad u macaan halkan bacdan waxaa loogu talagalay dhaskaas xogaa yara kor ka imaanaya waxaas in lagu cesho marka waa joog wanaagsan daldalool yar uu leeyahay nacawda ka imaanaysa macaankeeda aad baad xasuus fiican u gelaysaa qaybtiin markaad gudihiisa soo gashaan mudulkan in badanoo dadka Soomaaliyeed ee meelo kala duwan jooga waxaan filayaa inuusan ku cusbayn laakiinse kuwa badan ayaan arag marka gurigan oo kale warigoodna aan soo degin seexana wuxuu ka samaysan yahay isagoo dhan waa dabiici ma jiro wax banaanka laga keenay halkaan sidaad ka muuqata waxaan waa dhoobo weeye waa ciidii la qooyay biyo lagu shubay markii hore dhulka hoostaas hoose guriga ka soo bilaama laga jeexay geedahaas tiirta baa la muday geedaha tiirta ayaa loo muday kadibna tiirtii marka saa loogu wareejiyay asagoo dhan laamahaas oo sarab looga yaqaan deegaanka iyo ramaale iyo oo isla dhirtii ayaa la gelgeliyay siligaas hadduu idiin muuqdo siligaas oo kale la isku xirxiray kadibna dhoobadaas lagu malaasay intaas korana waa tiir iyo ayagana geed duur la yiraahdo oo isagana dhulkan aad uga baxa ayaa dusha laga saaray bas waxba uma baahnid hoostiina waa ciidii halka hoose oo Soomaalidu ama dunyada dadka wadamada ku arki jirtay mutaleelka iyo alaabaha kale ee la saaro waa ciidii oo dabiici ah carruur badan dad badan ku dhashay gurigan oo kaleeto kuwa badan ku dhashay oo maanta daafaha dunida ku nool iyo gudaha dalkaba kuwana sida ugu dhasheen bay u joogaanba laasahodan Qaawane ayaan idinka soo salaamayaa magaalo ka tirsan degmada Booq ee gobolka dowladda deegaanka Soomaalida magaalo weyn oo muddo dheer soo jirtay magaalo ku caan ah markaas barashada culumta diinta sheekh waaweyn ka soo baxeen ilaa iminkana caan ku ah cilmiga barashadiisa halkaan aan ku sugnaan doonaa ilaa iyo hadda waa qiyaastii waa ilaa adigu 2 duhurnimo wadaan joogi doonaa marka aad u mahadsantihiin saaxiibayaal inta yar aan tusay maanta magaalada halkaan aan ka degay ee aad ku macaan
saaxiibayaal jiif wacaanay leedahay halkan ma jirto joodari iyo sariir iminka ii taalo oo ku jiifo sida qayb badan oo idinka mid ahay ay markaas u barteen ciimadeeda iyo dirinteeda isku kay dul saaran barkinteedina waa taallaa taleefankaygana waa isticmaalayaa marka jawi macaan baan ku baashaalaynaa qayb badan oo idinka mid ah waxaan filayaa inay sideedan oo kale marar ay deegaanadii dhulka ilaahayna siiyo ee Soomaaliyeed ee faraha badan ku soo qaataan waqti iyo nafis adinka oo siyaasadda iyo arrimaha kale iyo shaqooyinkaba waqti u qaadanayo oo ka yara nasanaya si jawi aad u soo bedelataan caanihii ayaa deegaanka laga helayaa iyagoo karuura iyo iyagoo dhay ah taasoo keenaysa in markaas naftaada ay dareento runtii raaxa iyo nolol aad u macaan